toddobaadkan filimada yaab kale ee aynu daawanay waxaa ka mid ah mukhtaar roobo cali abmansuur oo ahaa ninkii xasuuqyada ugu daran ka geystay gudaha Soomaaliya ee argixisada ka tirsanaa oo dhiig u shubaya dadkii la xasuuqay. waxyaabaha kale ee yaab kale waxa weeye in kooxda igu sawir lafteedu ay arinta buunbuunisay oo ay soo waday mukhtaar roobo si uu dhiig u shubo. kaba sii darane waa xogta oo tilmaamaysa la helayahay in mukhtaar roobo lala doonayo in laga dhigo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. shacabka Soomaaliyeed ayaa dabeecadaha noocaas raalli ka ah. madaxdoodu ma ay fareen dambiyada heerka gaarsiisan haddii shacabku ay la xisaabtamayaan madaxdooda. isweydii yaa ka dambeeyay xasuuqii ka dhacay ee lagu hoobtay hotel Shamow aqoon-yahanadii aan weynay iyo ardadii qalin jebinaysay ee aan weynay. isweydii yaa ka dambeeyay xasuuqii ka dhacay hargaha iyo saamaha oo xilligaas afayeenka ahaa al-shabaab. isweydii yaa ka dambeeyay weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay tiyaatarka qaranka. isweydii yaa ka dambeeyay weerarkii laga beegsaday Korneel Umar Xaashi iyo Cabdikariim Faarax Laqanyo iyo rag kale waxgarad ah ama waxgaradkii beesha xawaale ee beledweyne joogay. isweydii yaa dilay korneeladii Soomaaliyeed janaalada Soomaaliyeed saraakiishii ciidanka xoogga dalka Buluuska iyo nabad sugidda. yaa dilay wariyaashii Soomaaliyeed yaa laayay odayaashii dhaqanka. hadda yaa agaasimaha sirdoonka qaranka Soomaaliya. hadda yaa la tusinayaa warbaahinta soo dhiig shubaya oo lagu sawiraya soo maaha kaasi amiirku xigeenkii argagixisada al-shabaab ama ninkii labaad ee ugu sarreeyay argagixisada al-shabaab mukhtaar roobo cali. soo ma aha ninka maanta agaasimaha sirdoonka qaranka Soomaaliya loo magacaabay Sakariye Ismaaciil Xirsi oo ahaa taliyihii amniyaadka al-shabaab ee dilalka joogtada iyo qaraxyada inta mas'uulka ka ahaa. labaduba miyaad aragtay iyagoo shacabka u sharaxay wixii ku qasbay falkaasi ay geysteen iyo qoome ay ka joogaan. ugu jaraani waxaa laba jeer hadlay mukhtaar roobo cali. mukhtaar roobo cali markii uu hadlana waxyaabaha yaab kale ee dadku ay la yaabeen waxa weeye in dawladdu xitaa ay sheegtay in mukhtaar roobo ay wada hadal kula jirto. mukhtaar roobo markii leedahay wada hadal ayaan kula jirnaa ayuu matalayaa. maxaa lagala hadlayaa mukhtaar roobo? shalay Soomaaliya kii shacabka dhameeyay. sheekada kale ee la yaab kale waxa weeye in Xasan Daahir Wasada oo shalay sheegay inuu dhiig shubayo isagoo kamid ah dadka qaatiliinta ahaa ee dadka dhameeyay. laakiin ay u diideen Fahad Yaasiin iyo Sakariye Ismaaciil Xirsi iyo Xasan Cali Khayre oo isku koox ah. inay yiraahdeen waxaan meesha la geenayaa oo idhaha loo sameeyaa kaliya mukhtaar roobo. ma ogoshahay ma kula tahay aragtidaada in qofkii shalay dadkaaga dhameeyay ee xasuuqa ka dambeeyay ee argixisada aabaheed ahaa in maanta isagoo faahfaahin isagoo lagu maxkamadeyn la dhihi karo waxa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ama loo tusi karo isagoo dhiig u shubayo kubii uu dhameeyay intii ka hartay. Soomaha majaajilooyinka kooxda February ay jilayaan. dib aan ku xasuusiyo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Sanbarool Shumar uu hadlayay Muqdisho xilli hore waxa uu yiri annagu ma eeganayno oo muraad iyo dantoona kama lihin wiilasha al-shabaabka. waxaanu doonaynaa inaan xanuunka gaarsiino dadka lama taabtaanka ah ee magaaladan isha xun u yeelay 30 sano. marka wuxuu ku jiraa Soomaha dadka qabiilada ah. waxa weeye wuxuu ku jiraa Soomaha waxa maanta dhacay ayuu ka hadlay Soomaha 14 Oktoobar waxa ka dhacay Soomaha gumaad lala beegsaday dad kamid dadka gobolka Banaadir 95%. waayahay bal inta yarta ila daawo soo ogaatid howluhun hadda soo socdana dabcan waxa aan bilowno waa bilow si xoog badan ayuu bilaami doonaa. marka waxaan ka codsanaynaa guud ahaan si xoog badan micnaheeduna waxay tahay meel iyo qof loo turaayo in ammaankaas la sugaana ma jirto. haddii ilaahay yiraahdo annaga muddo kooban waxaan rabnaa magaalada zero gun in laga dhigo qoray la'aan in laga dhigo. shakhsiyan aniga ammaan waxaan aqaanaa inuu ka bilowdo qorayoo la dhigo, inuu ka bilowdo dawladda awood leh, inuu ka bilowdo cadaalad jirta, inuu ka bilowdo inaan ilmaha aan daba soconno oo aan ciyaal shabaab oo masaakiin aan ciirsano lama rabee dadka lama taabtayaasha ah oo dalkan ishaan u yeelay meel kasta joogaan ama gudaha joogaan ama dibadda joogaan in la farsaaro.
haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa in waxna la fahmo ciidanku mas-uuliyaddiisa waa gudan doonaa aniga shakhsiyan nin u turaaya shaqada lay diray inaan qof aan u horsaaga ma jirto dad badan aa soo qabyaaladaynaya hawsha dad badan aa weji kala yeelanaya annaga shabaab iyo shabaab eke dawlad diida waa la diriraynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa magaaladan labadii maalmoodoo lasoo dhaafay nabadda iyo naruuraha laga helay inay sii xoogaado inay soomaaliya dhan ku fido waxaan rabnaa cadowga in la kufsado ma rabna asagana ka adkaan rabnaa waana mahadsantiin haddii inta aad daawatay waxaa hanjabay oo hanjabaad cad hanjabay xasan cali khayre wuxuuna yidhi waxaynu la gaaraynaa oo la soo taabanaa meesha ugu dambaysa haddaba intaad daawo waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed haddii ay jiri jirtay 27 sano la soo dhaafay in markii isjijiid yimaado inay madaxdu niyad jabaan madaxda idin hortaagan ma aha kuwa hadday jirto qof Soomaaliyeed oo ka walwalsan maalmaha la qaylinaya ama buuq siyaasadeed dhacaya sidaas daraadeed madaxdu qololkeedii ku laabanaysaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinla mari doono ilaa meesha ugu dambaysa aan tegi doono haddii inta aad daawatay daawade xaqiiqso oo rumayso in xasan cali khayre uu kursigiisa difaacanayay si loo qariyo xiisadii ka dhalatay maamul goboleedyada si loo qariyo xiisadii ka taaganayd dhiibidii la dhiibay qalbi dhagax si loo qariyo impeachmentigii la waday ee xildhibaanadu ay wadeen si loo qariyo qadiyadda galmudug oo ay dadka deegaankaasi ka soo jeedaayeen muqdisho u abaabulayeen in arrintii galmudug ay soo dhaafto oo magaalada muqdisho mataqaanaa ka bilaabato dhan kasta marka laga eego warbaahinta waagaas wax yeeshay sawirro muujinaya diyaarad muqdisho ka degtay diyaaraddaasi waxaa looga sheegaysan yahay inay ahayd diyaaraddii waday agabka loo adeegsaday qaraxyadaas bal waa yahay sawirada ila daawo ma aragtaa diyaaradda ma aragtaan baabuur meel bay timid baabuur aan xabadda karin baa soo gala gadaal waxbuu ka qaadayaa ma aragtaan waa ka nambarka diyaaradda ma aragtaan si fiican u fiiriya agabka la adeegsaday in uusan ahayn agab ay dad al-shabaab ka tirsan farsameeyeen agabkaani wuxuu u muuqdaa oo xaqiiqo ah inuu yahay agab ajnabiyiin ay soo diyaariyeen marka la eego baaxadda dhulka uu jaray haddii ayse al-shabaab awoodaan in qarax noocaasa argixisadu ay sameeyaan beri hore waxay qabsan lahaayeen Kenya iyo Ethiopia ay qabsan lahaayeen xaqiiqadu waa taa laakiin dadka iska indhatiraya sidii wax u socdaan maalin walba ay ku sheekayn karayaan way dhihi karayaan sidaan la yiri arrinkaani xaqiiqsada markaan eegay dadka baabuurka lacagtiisa ka soo diray muqdisho markaan eegay dadka Talyaaniga ka iibiyay markaan eegay muqdisho intuu wiilay iyo raatrashada la sameeyay markaan eegay baabuurka halka laga soo saaray qaraxyada iyo inuu jidka dheer afkooda muqdisho soo maray isagoo shiraacan baabuur shiraacan ah oo soo maray intaas oo aanu qiyaastiida waxay ila tahay kiiskaas uu aabe iyo hooyo dhihi doono oo lugta la geli doono agaasimaha sirdoonka qaranka Soomaaliya ninka loo magacaabay Laashigari Ismaaciil Xirsi taliyihii hore amniyaadka al-shabaab agaasimaha madaxtooyada fila Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimaha ku-xigeenka Cabdirasaaq Shoole iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo duqa muqdisho taabid cabdi oo isku kooxa isku gruubo intaas wataan kiiska halka ma dhaafi doono agabka waad ogaan doontaan waa la soo helayaa ama bor la isku qarayo ma la isku qarin agabka inta ma dhaafi doono ugu dambeyn waxaan xanuunka la wadaagayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inta dhimatay ee bahaw naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo waxaan ku waayay dad badan oo qaaliya 7 kamid ah qoyskayga waxaan ku waayay saaxiibkay Xamaan Manaas oo la ii soo sheegay oo aan la yaabay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un
dabaysha geedaha uma ruuxdo inay ciyaarsiiso waa dahal calisada leh nabaaddiino ما بعرف من أباي وانا ما تقبل يا الله